عليك صلاة الله عليك سلام الله عليك صلاة الله عليك صلاة الله عليك سلام الله عليك برمودك نبي يدو سؤال كوباد بان بلابن دونا سؤال كوباد waxay ku oranaysaa imisa qaybood buu ka kooban yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa inta qaybood ee dastuurka ka kooban yahay baad sheegaysaa waqtiguna wuu idin bilaabay su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa 5 qaybood 5 qaybood baynu eegi doonaa 5 qaybood way garteen saasay saxsan qaybta koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la yiraahdaa ciwaankeeda wixii la yiraahdo ma sheegaysaa su'aasha jawaabteeda isku dayo tilmaanta guud baynu eegi doonaa tilmaanta guud saas ay sax ku tahay xubinta labaad ee ka mid ah qaybta koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa la yiraahdaa ciwaankeeda haddaan isku dayo jawaabta su'aasheeda waa mabaadi'deedu eegi doonaa saas ay sax ku tahay qaybta saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland imise qodob bay ka kooban tahay tiro ahaan qodobadaasi halkay ka bilaabmaan halkaysa ku dhamaadaan bismillahirrahmanirrahiim dan jawaabta su'aasha isku dayo qodobadaas waxay ka kooban yihiin 16 qodob waxay ka bilaabmaan qodobka 8aad waxayna ku dhamaadaan qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka kooban yihiin baa tiri 16 qodob waxaana ka bilaabmataa baa tiri qodobka 8aad iyo qodob su'aasha jawaabteeda sidaas ayay ku garteen sidaas ayaana sax ku tahay su'aasha xigteen u gudbi doonaa su'aasha xigtaa waxay oranaysaa qodobka 114aad farqadiisa saddexaad maxay ka hadlaysaa bismillaah su'aasha jawaabteeda isku dayo waxa weeyaan farqada saddexaad waxay ka hadlaysaa waxaa soo eedeyn karaya hay'adaha garsoorka madaxda qaranka waxaa soo eedeyn karaya hay'adaha garsoorka madaxda qaranka waxaa soo eedeyn kara hay'adaha garsoorka ayaynu eegi doonaa mas'uuliyiinta qaranka ee dastuurku waajibiyay in la ansixiyo si ku meel gaar ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan 3 bilood su'aashaas saas qalad ku tahay qodobka 8aad farqadiisa saddexaad maxay ka hadlaysaa bismillahirrahmanirrahiim dan su'aasha isku dayo waxay sheegaysaa in lagu dooran karayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba qaab xisbiya amba iska soo sharaxayaan xisbiyo in lagu dooran karo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa qaab xisbi aynu eegi doonaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hore ayaa sii wadi doona hawlaha ay u xil saaran yihiin su'aashaasi saas ay qalad ku tahay su'aasha xigtaa waxa oranaysaa qodobka 9aad ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland muxuu ka hadlayaa haddaan ka hadlo qodobkaas jawaabtiisa isku dayo wuxuu ka hadlayaa eedaynta iyo maamuuska xayuubinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka eedaynta iyo maamuuska xayuubinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka eegi doonaa su'aashaasi saas ay qalad ku tahay waxay ka hadlaysaa dhismaha garsoorka su'aasha xigteen u gudbi doonaa waxay oranaysaa qodobka 100aad ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland muxuu ka hadlayaa isku dayo qodobka 100aad wuxuu ka hadlayaa maxkamadaha qodobka 100aad wuxuu ka hadlayaa maxkamadaha inuu eegi doonaa qodobka 100aad wuxuu ka hadlayaa maxkamadaha saas sax ku tahay wixii taa ka dambeeya waxaad soo fadhiisan doontaan goobihiinniba soo kala fadhiisan doontaan natiijada u dambaysa lagu dhawaaqi doonaa laba kooxood oo kala dhicin baa tihiin laba kooxood oo karti iyo dhiiranaan iyo geesinimo muujiyey baa tihiin laba kooxood oo shuruucdii dalka u yaallay akhriyey oo fahmay baa tihiin aad baa u mahadsantihiin labadiinnuba waxaa mudan tihiin ammaan badan iyo bogaadin baa mudan tihiin intaa kadib wareeggii u dambeeyey ee aynu ku kala saarayn labadan kooxood waxaa guushu raacday oo kaalinta koobaad galay kooxda uhdas
sidoo kale kooxda tayo oo in badan soo badinayay iyaguna waxay galeen kaalinta labaad runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay arrimaha noocan oo kale ee ka wasaarad ahaan isaar dhalinyartu sheegtayna waanu ballan qaadaynaa inaanu sii ballaadhino barashada dastuurka iyo kobcinta iyo kor u qaadista dareenka muwaadinimada ama laxjalada qofku dalkiisa ka qabo runtii qaranka faa'iido weyn ayay u leedahay qofku inuu dawladdiisa barto isku dheelitirka iyo awoodaha waaxaha dawladda inuu barto xuquuqaadkiisa asaasiga ah ku xusan dastuurka inuu barto runtii waxay u tahay waa hantida ugu weyn uu qofku leeyahay dawladdu xuquuqaadkaaga inaad difaacan karto doorka iyo mas-uuliyaadka ayada kala duwan ee dawladda inaad barato runtii waa hanti weyn oo qofku la doonayo inuu fahmo inuu barto inuu ilaashado inuu ku doodo dareen wadaninimada waa inuu jiraa waayo dalkan aynu leenahay dalkan aad wax u barateen dalkan horumarkiinu mustaqbalkiisa ku xidhan yahay marka dareen inuu jiro wadaninimada runtii waa arrin loo baahan yahay waayo waxyaabaha mararka qaar ee doodaha Soomaaliland taagan waxa kamid ah qofka waa inuu jiraa qofku wuxuu daacad u yahay marka loyalty-ga yuu qofku daacad u yahay qofku ma qaranku daacad u yahay ama dawladnimada ma wuxuu daacad yahay qabiil ma wuxuu daacad yahay fikir iyo koox gaara runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim ah marka dalkan aynu daacad u nahay dalkan aynu wax ku nahay mas'uuliyad wadareed baa inaga saaran marka ka mas'uuliyad ahaan iyo ka wasaarad ahaan doorka iyagaanu ciyaaraynaa dadka waxaanu gaarsiinaynaa mas'uuliyaddaanu u haynaanu u igmanahay oo kow ka tahay barashada dastuurka kor u qaadista kobcinta wadaniyadda idinkana xilka idin saaran waxa weeye maanta laga bilaabo waxaad tihiin daljirayaal mar haddaad ka qalin jabiseen ama aad runtii qayb ka ahaydeen barnaamijka daljir idina waxaad noqonaysaan daljirayaal shaqada waxaad ka qabanaysaan xaafadaha iyo degmooyinka aad degan tihiin waxaad insha Allah la mataanayn doonaan barnaamijyada aad bulshada u haysaan haddii noqoto waxbarasho iyo haddii noqoto wacyigelin waxaanan samayn doonaa biidnillaah qorshe aynu ka wada qayb qaadanay oo aad ku fidinaysaan ama aad ku gaarsiinaysaan barnaamijkan guud ahaan dalka waayo wasaaradda shaqaalaheeduna uu kooban yahay waxa laga yaabaa awoodeeduna inay koobnaato laakiin marka la wadaago mas'uuliyaadka qofka inta uu ka garanayo intuu gaari karo uu doorkeeda ka ciyaaro bay noqonaysaa in runtii la wada gaadho bulshada mas'uuliyaddaasina wasaaradda ka dhacdo marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa fahamkiina runtii mid lala tacajabay buu ahaa muddadii aad tartanka ku jirteen waxaana dareemayaa juhdi inaad geliseen marka juhdigaa waynu sii wadaynaa bulshadaynu uga faa'iideynaynaa si qorshaysan baynu insha Allah billahi arrimaha u wadaynaa maanta waa bilow kooban waxaanu jeclaysanaa barnaamijka daljir oo inoo socon doona sida aqoonyahanku inoo sharaxayn aanu uga jeedno qofku runtii mas'uuliyad waxaanu naqaanay geeljire waxaanu naqaanay adhi jire marka wax weeyaan inagu waxaanu noqonaynaa daljirayaal baynu noqonaynaa dalkaynu jiraynaa waxaanu ku ilaalinaa laxjalladaynu u leenahay qofku wuxuu ilaaliyaa wuxuu isagu leeyahay wuxuu raacaa hantida uu isagu leeyahay dalkan inaga ale waa hantideennii inagaa raacayna qofku wuxuu ku ilaaliyaa wuxuu isleeyahay waad ku ilaalin karaysaa inagu waxaanu ku ilaalinaa sharciga dalka kaasina barashii naga doonayaa si bulshadu noola ilaalisana inaynu barno ayaynu doonaynaa marka waa birbilow bay noo noqonaysaa insha Allah billahi kariim guud ahaan wasaaradda shaqaalaheeda iyo dhammaan dhalinyaradan ku tartantay aqoon isweydaarsiga iyo tartanka iyo inuu qofku dhuuxo oo uu barto wadaniyadu maxay tahay dastuurkeenu wuxuu sheegayaa xeerarka kala duwan maxaa heeday inoo yaala runtii maanta waxaad tihiin oo ka qayb qaadateen tartan aad u muhiim oo magac wanaagsan leh oo ah daljire qofku markuu dalkiisa joogo waxaan oran karaa waa daljire laakiin wadankiisa marka uu ka baxay wadan kale loo diro maxaa la yiraahdaa ya danjire samaha safiir weeyaan levelka lagu gaaray weeyaan marka maanta idinku wali dalkiiba joogtaan waxaan rajaynayaa inaad wada noqotaan daljirayaal haddii la yiraahdo oo danta wadanka la idin diro wadamo kale
si ay u gaarsiisaan danta iyo maxay afkaarta iyo waddankeenu wuxuu doonayay inuu iibiyo wadamada kale uu ka iibiyo waxaan agaasime idinku bushaareynayaa wasaaradda waxbarashadu diyaar waxay u tahay inay kaalin weyn ay siiso in lagu daro manhajka ama curriculumka in lagu daro dastuurka iyo barashadiisa iyo walibana in lagu dabaqo ma in la barto kaliya barashadii wasaaradda inoo haysaa laakiin in lagu dabaqo oo ficil loo bedelo ay wasaaraddu ku soo dhaweynaysaa oo 10 walba la dhexgeliyo maxay dastuurka fahankiisa iyo aqoontiisa iyo qofku wadaniyada inuu meel fog uu gaarsiiyo uu baran karo ilmuhuna ku barbaari karo ilmaha yare imaka kejiga ilaa qofka jaamacad dhiganaya inay meel walba hadba sida ay ugu haboonan tahay loo geliyo ayaa wasaaradda naga go'an idinkana waxaa idinku bishaareynaya dhalinyaradan maanta halkan ku tartamaysay ururada kala duwan ee bulshada ee ka shaqeeya maxay arrimaha dastuurka inaad idinkuna qayb ka tihiin kana fikirtaan bal sidan si ka duwan oo ka sii casran inaad samaysaan waxa la doonayaa inaad daba gashaan iskuulada maamulayaasha iskuuladii abooqataan aad indho wadani ahaan inay ku eegtaan oo